maalin kasta waxay soo gaadha tobanaan iyo boqolaal fariimood oo walaalo badan ay soo weydiinayaan waa maxay business modelka ugu fiican ee ku samayn karayna income sidee ayaan dakhli online uga samayn karaynaa sidee ayaan e-commerce uga shaqaysan karaynaa sidee ayaan dropshipping u samayn karaynaa muuqaalkan insha Allah waa wuxuu noqon doonaa muuqaalkii ugu qiimaha badnaa ee kaga hadlo e-commerce iyo online industry insha Allah hadii la yiraahdo waxaan step by step kugu qali doonaa business modelyada kala duwan ee ka jira online marka ugu horeysa markaad Google tagtid ama markaad YouTube tagtid ku qortid sidee baan online ka lacag uga sameeyaa ama how to make money online business model iyo aad u tiro badan baad arkaysaa waxaad arkaysaa freelancer inaad ku shaqayn karaysid waxaad arkaysaa inaad affiliate ku shaqayn karaysid waxaad arkaysaa Amazon FBA waxaad arkaysaa dropshipping waxaad arkaysaa SMMA ama social media marketing agency ama waxaad arkaysaa business model aad u tiro badan marka waxaas oo dhan waxay kugu sameynayaan dawaqad ama inaad ku dawaqtid Australia waxa geeban ka bilaabaa maxaan sameeyaa maxaa igu haboon muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal aan kugu qalo step by step business modelka ugu muhiimsan ay tahay Allahumma musta'an inaad bilowd anigana ii soo shaqeeyay muddadii 10 sano la soo laafay waxaan ka soo shaqeeyay businessyo aad u tiro badan sida businesska inaan alaab iibiyo oo Allahumma musta'an dar iibiyo inaan transportation ka soo shaqeeyo inaan Facebook marketplace alaaba ku dhex rogrogo inaan social media marketing ka soo shaqeeyo in waxyaabo aad u tiro badan baan ka soo shaqeeyay waxyaabaha aad ku tirada badan laba hadda waxa ugu muhiimsanaa dropshipping maalinka dropshipping gashid nin Jim Rohn la yiraahdo wuxuu yiraahdaa muhiimadu ma aha waxaad helaysid shaqo markaad ka shaqeynaysid ma aha waxaad helaysid waa qofka aad noqonaysid marka dropshipping waxaan oran karayaa maanta qofkaan ahay qayb weyn bay ka qaadatay inaan Allahumma musta'an business yada dhiso dropshipping waa business model soo jiray ilaa iyo 1970 waxaad iibinaysaa product aanad adigu lahayn halkay ka tahay halkay waagi hore ka ahayd markaan businesskayga transportation ka bilaabayay inay $10,000 iga baxaan si aan businesska kaliya too sameeyo waxa soo dhan sameeyo kan laakiinse lacagtayga baxay waa zero adigana lacagtayga baxay waa zero sabab ku ayu shaqeeyaa business modelkan dropshipping waxa weeyaan inaad u dhaxaysid supplierka iyo qofka customerka maanta waxa jira ama TikTok industry intay soo baxday waliba waagi hore waxay ahayd inaad Facebook ads sortid waxay ahayd inaad xayisiis ku bixisid sida aad productyada market geeysid dropshipping business model waxa weeyaan waxa jira productyo aad u tiro badan oo aanan dadka la horkeenin ama productyo aad u tiro badan oo China yaala oo laakiin aan oolin wadamadan productyadaas waa productyo mushkilad xalinaya productyada ciyaalka noqon karaan kuwa guryaha noqon karaan productyo kala duwan bay noqon karaan productka halkii ay ka ahayd inaad adu product ka soo iibsatid oo productka gurigaaga lagu keeno dinaad dib adu iibisid ama uu kugu socon waayay ama uu kugu fariisanayay laakiin productkan isagu kaagama baahna inaad waxa soo samaysid kaliya waxaad u baahan tahay inaad product iibsamayaad soo heshid productyada marka laga hadlayo waxa jirta general store baa jira store aad waxyaabo badan oo kala duwan aad ku iibinaysid sidoo kale waxa jira niche store baa jira niche store waxa weeyaan waa productyada khaaska oo wax gaar make-upka iyo xamuradaha iyo waxyaabahaas buu ay focus ka saaraya sidoo kale waxa jira single product kaas wuxuu noqon karayaa product kaliya oo viral noqday haddaan TikTok tagno on ku qorno TikTok made me buy it waxaad arkaysaa intaas oo producty ama intaas oo muuqaal oo producty laga sameeyay productyada ama muuqaalada waxa daawaday malaayiin mid baa dhici karta 12 milyan ay daawatay mid baa macquul in 2 milyan daawadeen productyada dadka iibinayna waa dhalinyaro 18 jiro 19 jiro 20 jiro maybe 50 jiro maybe 30 jiro boqolaal jeer waad ka arkaysaan internetka Allahumma musta'an business modelkan waa business model ku siinaya inaynan lacag ka bixin halkii aad wax ka baran lahayd sax it is a competitive oo waa very competitive oo dad badan way imanayaan laakiin se muhiimadu waa wax qofkaad ku dhex noqonaysid koow maxaad baranaysaa sida product loo soo helo laba maxaad baranaysaa sida store loo design gareeyo saddex maxaad baranaysaa branding kasta loo sameeyo afar maxaad baranaysaa social media marketing shan maxaad baranaysaa designing the whole e-commerce ama dropshipping waa wixii online ka dhex jiray oo dhan ayuu hal meel soo ka keenaya intaas oo xirfadood markay ku sameysmaan hadii aad adu bari business aad leedahay bilowdid businesska si fudud ayaad successful kaga dhigi karaysaa ama si fudud ayaad businesska successful uga dhigi karaysaa dropshipping waa business model soo jiray sanawaad badan 1970 baa la yiraahdaa ayuu bilaabmay oo waagi telefoonka uu soo baxay dan mails baa la sugu diri jiray mailka product kala tusay dan product kala iibin jiray laakiin se wuxuu fududaaday oo uu aad u fududaaday 2010 waxa dhacday in Mareykan iyo China ay ku heshiiyaan inay sameystaan waxa la yiraahdo e-bucket waxa ku midoobay USB Post iyo Allahumma musta'an China Post ayaa ku heshiiyay inay qiimo jaban ugu geyn karayaan dadkii alaabihii oo reliable hadda laakiin se waxay marayaan ilaa 35 wadan marka lagu daro Canada wadamo badan oo Europe mostly inteeda badan marka barkoodna tareena la soo saaraa barkoodna marka bala soo saaraa marka halkii ay ka ahayd Allahumma musta'an productku inuu China kaga yimaado lacag aad u badan lacag yar oo jaban ayuu ku tagayaa Mareykan iyo Europe iyo wadamada e-bucket kale maybe wadamo Asia way ku jiraan Imaaraadka meelahaas inay ku jiraan ba macquula laakiin inta badan waxay u badan yihiin waxaas hadda dropshipping markaynu ka hadlayno dropshipping waa afar darajo oo kala duwan ayaa la maraya marka ugu horeyso inaad product soo heshaa productkaas waa inuu noqdaa product
product mushkilad xalinaya ama product wow factor aan laga heli karin dukaanada iyo storada ku yaala magaalada Allahu musta'an marka productkaas sidee baad ku soo heli kartaa marka ugu horeysa TikTok baad tagaysaa TikTok made me buy it baad ku qoraysaa Amazon finds sidoo kale waxa jira Allahu musta'an dropshipping marka there is a countless hashtags la raaca jirta hashtags ka ba raacaysa productyada malaayiinta ay daawadeen baad tagaysaa dan waad eegaysaa commentiyadooda iyaga waxa ka qaldan baad eegaysaa store-kooda hagaajinaysaa dan productka marka soo qaadid waxaad u baahanaysaa inaad online store listid Shopify waa game changer wuxuu soo baxay 2010kii ayuu soo shaabaxay ilaa 2005 meelaha uu jiray laakiin 2010kii buu soo shaabaxay wuxuu ku siinayaa integration inaad integration la sameyn kartid AliExpress adigoo isticmaalaya waagii hore Overload la isticmaali jiray laakiin hadda Dseries application la yiraahdo ayaa la isticmaalaa application-ka Dseries wuxuu ku siinayaa inaad alaabta AliExpress ku jirta inaad soo qaadid oo online store Shopify aad ku dhex dhistid dan markaad dhistid waxa kuu fududaanaya Allahu musta'an inaad alaabteed xaysiiskiisid dropshipping website-kaas saddex buu kala baxaa inaad samaysid general store oo productyo kala duwan aad soo wada dhex tirtid sida dukaanada caadiga inaad talabaado niche store samaysid niche gaara niche-kaas wuxuu noqon karayaa productyada dumarka wuxuu noqon karayaa productyada xayawaanada wuxuu noqon karayaa productyada guryaha wuxuu noqon karayaa productyo kala duwan waxa jira isna store kale oo saddexaad oo la yiraahdo one product store kaas wuxuu waxaad Allahu musta'an ku iibinaysaa waxa weeyaan waa hal product oo kaliya productkan kuwan oo kala imika best seller bay ku jiraan AliExpress ba tagaysaa dan waad soo qaadanaysaa dan one product store baad dhisaysaa koorsadayda faca koraya waxaan ku barnay boqolaal iyo kumanaan kun oo arday sidii ay u sameyn lahaayeen dropshipping sidii ay u sameyn lahaayeen proper professional store sidii ay u sameyn lahaayeen social media marketing all waxaan kaga hadlaynaa oo dhan course baan ka diyaariyay course-kaas waxaad ugu baran doontaa step by step sidii aad u dhisi lahayd ganacsi dropshipping oo successful okay qaybta kale ku xigta waxa weeyaan inaad samaysid social media marketing marka productkii store-kii waad dhistay sawirkii waad soo qaadato AliExpress baad ka soo qaadatay waxaad u baahan tahay inaad footage ka heshid inaad sawir muuqaal ka samaysid waayo dadka muuqaalada viral ka helaya waxay Allahu musta'an sameeyaan productyadii ama iyaga duubta oo telefoonkooda ku duubta ama dad bay u diraan inta badan waliba inaad adigu duubatid bay ku fiicanta dan waad productkii waad dalbanaysaa oo waxaad ka dalbanaysaa Amazon waxaad ka dalbanaysaa meelaha kuugu dhow productka markaad dalbatid muuqaalo ayaad ka create gareynaysaa hadda sidaan kuwan TikTok ugu soo aragnay kale muuqaaladaas iyo sawirada quruxda badan markaad ka samaysid waxaad sameynaysaa social media marketing haddii aad income yar oo fiican haysatid $100 meelaha aad ku eegi karaysaa inaad productkan aad test gareysid oo test aad ku eegtid ama $50 test aad ku eegi karaysaa sidoo kale waxaad sameyn karaysaa inaad productka aad qaadid muuqaalo wow waad ka create gareysid muuqaalada wow-ga inaad social media ku post gareysid gaar ahaan TikTok waxay ku siinayaan muuqaaladaas imika muuqaalka traffic inta la helay 2 milyan oo qof ayaa muuqaalka daawaday 2 milyan oo qof ee daawatay waxay Allahu musta'an ku daawadeen free caadi ahaan hadii doonaysan 2 milyan oo qof ay productkaaga arkaan waa inaad boqolaal iyo kumanaan kun oo dollar aad ku bixisaa marka waxay ku siinayaan TikTok inuu muuqaalkaaga viral noqon karayo waagii hore halkii ay ka ahayd inay lacag badan kaaga baxdo dan inta markaad samaysid kow waxaad baratay xirfad laba waxaad dhistay business haddii store-kaas shaqayn waayo mid labaad baa ku eegaysaa haddii productkaas shaqayn waayo mid kale aad ku eegaysaa you will never give up ilaa aad ka dhisaysid ama bishii aad ka samaynaysid $1,000 ilaa $10,000 sidaan ka warqabno Shopify payment wadankeena kama shaqeeyo ama wadamo badan sida Imaaraadka Turkiga wadamo badan oo Asia kama shaqeeyo marka China iyo Japan iyo Korea wadamada laga reebo haddii Shopify noqoto haddii Stripe noqoto iyo haddii PayPal noqoto marka payment gateway-yadaas waxay hayaan caqabad weyn oo hortaagan dhalinyarada wali gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliya iyo Kenya ku nool si ay payment gateway u helaan markii hore waxay ahayd inuu qof transfer wise ku soo furo inaad qofkaas uu ku xiriiriyo inuu number cashuureedkiisa ku geliyo inuu cashuurtiisa wax kaaga soo noqdaan laakiin hadda waxaan ku sameynay system ku fududeyn doona sidii Allahu musta'an aan kaaga bahlan doonin haday noqoto cashuurtii haday noqoto payment gateway-gii haday noqoto addresskii haday noqoto everything aad u baahnayd laakiin se shuruuda ku xidhan waxa weeyaan waa inaad ku soo biirtaa koorsada faca Korea ee qaybta VIP-da linkiga hoosta ku dhufo koorsada ku soo biir insha Allah hadii la xiraado step by step waxaan ka caawin doonaa sidii aad payment gateway-ga aad ugu xidhan lahayd haddii aad doonaysid inaad baratid sidii aad u dhisi lahayd ganacsi dropshipping oo guuleysta step by step waxaan ku diyaariyay koorsadaas baad ku baran doontaa hadda waxaan markii ugu horeysay abid waxaan sameynay Club 100 boqol qof ayaan u qaadan doonaa inaan matargareeyo on step by step u tuso sidii ay online business u dhisi lahaayeen sidii ay Allahu musta'an social media marketing u sameyn lahaayeen sidii ay store qurux badan u sameyn lahaayeen step by step waxa coach karayn doona oo week kasta ku soo gali doona aniga si aan Allahu musta'an ku waxay hadii aad doonaysid inaad ku soo biirtid Club 100 WhatsApp-ka linkiga hoosta yaala ku dhufo la xiriir teamka waxaan rabtaa ku tiraahdaa waxaan rabaa Club 100 inaan ku soo biiro dan teamka ayaa ku sheegi doona waxyaabo lagaga baahan yahay insha Allah hadii la yiraahdo waa inooyo bartaas dhamaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya qof ina challenge gareeya qof inagu taageero waxyaabaha nolosha rabno hadii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo hadii aanad adigu qof ka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo hadii aanad daawan muuqaalka tutorial-ka ee Shopify sida loo sameeyo kaga hadlayo muuqaalkaas oo daawo waa inooyo muuqaalka xiga wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh